بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. سورة العلق iyaduna waa suurad maki ah, aayadaheeduna waa 19 aayadood weeyaan. iyadu waxay kala gedisan tahay qur-aanka kaloo dhan. waxa weeyaan waa qur-aanka wax soo dega tii ugu horeysay weeyaan, yacni suuradii ugu horeysay wax qur-aanka soo dega weeyaa la yidhaah. bismi illaahi araxmaan araxiim. ilaahay magaciisaan ku bilaabanaynaa. ilaah naxariista caamka iyo midda khaaska naxariista ayaan ku bilaabanaynaa magaciisa. ilaahi wuxuu yidhi iqra aqriyaa layidhi. iqra aqri bismi rabbika, rabbigaa magaciisa. xadiidkii saxiixa oo ahaa maaragtay ina awala maa nazala bihi jibriilu calayhi salaam, qur-aanka wax uu nebigu jibriil la soo dego, nebigu kula soo dego wixii ugu horeysay wuxuu ahaa isagoo nebigu ku cibaadeysanaya maaragtay godka la yidhaha qaaru xiraa bisha ramadaan. wuxuu ahaa suuradan awalkeeda ilaa laga gaaro maa lam yaclam, aakhirkeeda marka alla uu soo dejiye waaye. kabacdi waxyu markaa israacraacay. markii qeybtaa hore soo degtana waa tuwa nebigu asagoo cabsanaya uu u yimid markaa marag uu arkay, uu yidhi zamiluuni zamiluuni. riwaayad kaleena waxay qabtay dathiruuni dathiruuni, sidaas oo kale. aayada suuradaha kale markaa soo degay yaa ayuha almudathiru iyo yaa ayuha almuzamilu iyo tataa markaa waxii wa israacraacay markaa kabacdi. ilaah wuxuu yidhi marka iqra aqriyaa layidhi bismi rabbika, rabbigaa magaciisa aqri. rabbigaaga magaciisa aqriyaa layidhi alladii rabbigaasoo khalaqa abuuray, ay khalaqa alkhalqa, khalqiga oo dhan abuuray waay, makhluuqo ilay waay, khalqiga isagu iska leh. khalaqa kulla shay, shay kastaba allaha abuuray. magaciisa aqri baa layidhi nebi allow. marka akhriska fadaaisha uu leeyahay iyo qiimaha uu leeyahana meesha waa lagu tusaaleynaya iyo islaamka ihtimaamka uu siinayo. awal waxyi kii ugu horeeyay, aayaddii ugu horeysay aqri bay ka bilaabatay. marka qiraa'ada qofku inuu wax yaqaano, wax barto, wax aqriyo waxay ka mid tahay waxyaalaha aada iyo aada qofka qiimihiisa u qaadaya oo kor u soo qaadaya ayay ka mid tahay maaragtay. oo ilaahay diintiisa haddaadan baranin, haddaadan wax akhrinin, hadda fahamkaagu meel maaragtay qaasiraho gaaban ayuu joogayaa. marka khatarta ayaad ku jirtaa. marka iqra aqriyaa la yidhi bismi rabbika, rabbigaa magaciisa aqri alladii rabbigaasoo khalaqa abuuray, ay alkhalqa waaye. ka bedel markaas khalaqa abuuray al-insaana, insaankii abuuray waa jinsul insaana loo jeedaa maaragtay. marka waxaa loogu khasisay meesha waxaa waaye likownihi ashraf almakhluuqaat ayaa la yidhaahdaa maaragtay. mashruuca makhluuqaadka ilaahay abuuray ayuu ugu sharaf badan yahay insaanku. oo waxa weeyaan ilaahay sancadiisa ka muuqato koonkan si u maamulayo, tadbiirka uu suubinayo, waxaasoo dhan waa insaanay asaga ku kulansanta. khalaaqdii kale o dhan waa joogtaa laakiin waxba ma qabanayso, waxyaalaheedu waa iska maxduud. laakiin koonka waxaa maaragtay wastacmarakum fiiha, yacni dhulkan waxaa maaragtay loo dhiibo khaliifatullahi fil ard laga dhigay waa insaanka weeyaan. khalaqa waa abuuray, allihii abuuray al insaana, insaanka abuuray magaciisa aqri waaye. min calaqin ka abuuray waaye, xinjir, yani calaq waa xinjir waaye, waa dhiig jaamid ah waaye. marka adwaarta dhiigu u maro ama nudfadu ay marto markay rixmil hooyada rixmkeeda ku jirto, taasaa lagugu baraarujinayaaho yacni xaaladda insaanku sida isu badbedelayso kama gedisna midda aakhiraa lagu leeyahy. tabaayunkiyaa lagu tusinayaa maaragtay. ilaahay baa abuuray, maadaa ka abuuray, waa simay, basharuu ka dhigay, waa toosiyey. qaadirun waaye alla kii awooda inuu wax kastaba sidaa ka dhigo, aakhirana inuu soo celiyo, waxba lama aha. iqra aqriyaa la yidhi warabbuka, rabbigaa al akramu, xaaluu yahay maaragtay kii karaamada badan uu yahay rabbi subxaanahu wa tacaala. yani aqri yani ku soco waaye wixii lagu amray akhriskiisa. yani iqra ay imdi lima amartuka bihi min alqiraa'a, wixii aan ku faray oo qiraa'a ah ku socaa lo leeyahay. warabbuka alakramu, rabbigaagana kii karaamada badan waay. alladii zaada karamuhu, oo rabbigaa waa midka karamkiisu ziyaaday, wa fadluhu uu ziyaaday calaa kulli karamin, uu ka ziyaaday karam kasta, iyo wa fadlin, fadli kastaba uu ka ziyaaday weye, oo aan la gaari karaynin weye rabbigaa.
alladii ilaahi waaye magaciisa akhri ama alladii ilaahi waaye rabbiga callama baray bilqalami qalamkii baray waa qoritaankii waa wax lagu qoray qalinkii wax lagu qoray yacni callama baray alinsaana insaankii bilqalami yacni qalinkii in wax lagu qoro qalinkii in wax lagu qoro baray waaye ay callama alinsaana alkitaaba loo jeedaa qoraalkii baray insaanka bilqalami wax lagu qoro markii hore wax ma aqoonin kabacdi waxa weeyaan waa socotay qofkii tafaahumkii macrifadii wixii oo dhan kabacdi markaas waxa weeyaan yacni wax bartay weeye marka haddii aysan waxbarashadaas iyo macrifadaas iyo tafaahumka bayna annaas aanay jiri lahayn lan maaragtay ma toosnaa lahayn amru dunyaa maaragtay iyo waddiin labaduba yacni waxa weeyaan waxay u baahan tahay qoraalka iyo akhriska iyo wax badan baa ku xiran alladii ilaahi callama baray insaanka bilqalami ay bilkitaabati bilqalam qalinka in wax lagu qoro baray callama alinsaana insaankii baray allihii baray weye sida qalimkaba u baray ayuu haddana wuxuu baray maa lam yaclam waxaanu ogeynaali yani wuxuusan warba u hayn oo arrimo kale ah ayuu alla baray waay cilmigiisu ayuu ku shubay waay bayaankiiyuu baray qalinkiiyuu baray lisaankiiyuu baray wixii oo dhan waxa weye qiraa'adii akhriskii culumtii kale waxaasoo dhan markii horena wuxuu ahaa ummi aan waxba qorin waxba maaragtay aan war u haynin ayuu ahaa wey kabacdina sidaasaa loo baray waa arrin aada iyo aad u cajaa'ib badan kallaa ka joogaa liinsaanow kalla waa radci insaanka kaafirka lala hadlayo oo laleeyahay nicmooyinka faraha badan oo cajaa'ibta ah gaalnimaha kala hortegin duqyaan iyo maaragtay edabdaraha kala hortegin inna ilaa rabbika rabbigaa intii ka ah ayuu ahaaday arrujcaa soo celintu waxaana meesha laysu soo celinayo oo aakhiro la tegaya waxa weeyaan xagga rabbigaa waay marka waxaa la yidhi kallaa ga joogaaley insaankiyaa laga hadlayaa oo maaragtay edabdarada suubinaya ina alinsaana insaanku layadqaa waa kii qooqaya kibraya waay wuu qooqaya yacni xadkii buu dhaafaya duqyaanku waxa weeyaan xuduuddu qoxu inuu dhaafo oo xadkii loo dhigay uu ka gudbo oo maaragtay taasaa loo jeedaa maaragtay marka waxa uu leeyahay insaaniyow ka joogaale jahligaaga iyo maaragtay inaad kala hor timaado nicmooyinkaas gaalnimo aad ka hor timaado waa duqyaankii waaye waa xadkii ood dhaaftay waaye sidaas oo kale maaragtay arrintii abijahali ku saabsaneed markii aayadda qaybaheeda dambe uu maaragtay soo degaysay ayaa looga hadlaa saas oo kale maaragtay markuu oranayay muxuu ahaaye uu ku dhaartay abijahal laata iyo cuza intuu ku dhaartay uu yidhi haddii aan arko maxamed saas oo kale maaragtay oo dukanaya qoorta ayaan uga istaagayaa hoy saas oo kale wejigana ciid baan uga shubayaa saas oo kale uu yidhi marka waxaa la insaanka waa kibro waa qooqalay muxuu u qooqay an ra'aahu inuu arkay istaqnaa inuu deeqtoonaaday oo asagu isku filan yahay oo isan ilaahay u baahnayn taasuu ku qooqay waay xadkii uu dhaafo kibirkiisi halkaasuu gaaray waxa weeyaan arrinkaas waxaa ku bixinaya yacni ghinaaga iyo daaqina inuu noqdo naftiisa u arka inay naf hani a tahay oo tharaa iyo awood iyo waxaasoo dhan ay leedahay saasuu isu arka markaasuu qooqa heerkaa gaaray waay waray waxaa ka joogaa la yidhi inna ilaa rabbika rabbigaa intii ka ah nebi maxamedow ayuu arrujcaa noqoshadu ahaatay waay yani rujuucu haada taaqi taaqigaas rujuuciisa noqoshadiisa iyo isaga iyo wixii lamida wuxuu ahaaday bilbacthi maalinta laysoo bixinayo cadaabka ilaahayna maalintaasay dhedheminayaan waay kibirkooda iyo maaragtay madax taagooda maalintaasuu baaba-aya inna ilaa rabbika rujca rabbigaa intii ka ah ayay noqoshadu ahaatay marka hala yaabin waxaan kibrayo madaxa wada taagaya waxba qaadi maayaan way arrinkooda halkaasu ku dhammaanaya marka ilaahay wuxuu yidhi marka arrintii abijahal ayaa laga hadlaya nabiga caleyhi salaatu wasalaam marka ilaahay wuxuu yidhi ara'ayta bal ka waranaa la yidhi alladii kii ka waran yanhaa reebaya cabdan addoon reebaya idaa sallaa markuu dekanaayo bal midka reebayo u diidaya salaadii u diidaya masjidulxaraam inuu ku dukado u diidaya markaasuu leeyahay maaragtay maxaa soo kuma dhihin warkuu arko asigoo dukanaya ka joog waxaan soo kuma dhihin waa horaraya waa ka hor imaanaya waa u diidanya ilaahay buu caabudaya alluu u dukanaya
markaas u diidan yahay. bal ninkaa ka warana leeyahy ara-ayta bal ka waran alladii bilkii ka waran yanhaa reebaya. muxuu reebaya u diidan yahay? yanhaa ay yamnacu reebaya cabdan addoonuu reebayaahoo idaa sallaa markii uu dukanayo addoonkaasuu horarayaa u leeyahy maxaa tahay yani waa hadidaya uu leeyahay maaragtay maxay tahay waxa aad suubinaydo. bal midkaas ka waranaa lee taaqiyada noocaasa oo sidaas maaragtay addoonkii ilaahay salaada u diidan soo maaha arrinkiisa bal ka waranaa layidhi. ara-ayta ka waranaa layidhi in kaana hadduu yahay cabdigaasi cala alhudaa hanuunkii korkiisa hadduu yahay hanuunkii uu ku sugan yahay oo sidaa ku cibaadaysanaya taacadii ku taagan yahay iska waran. ow amara ama uu amrayo bitaqwa cabsi uu amrayo dadka waxa uu sheegayaa ay tahay taqwada ilaahay, cabsida ilaahay, diinta ilaahay oo la qaato arrinku uu sidaa yahay bal ka warano wanaagga uu ku socdo. ara-ayta bal ka waranaa layidhi in kadaba hadduu beeniyey midkan wax diidaya waay oo hortaaganoo leh salaada u diidaya hadduu asagu beeniyey ka waran xaqii u beeniyey oo watawallaa uu jeestayoo xaqii uu ka jeestay oosan qaadanaynin haddana uu sidaa ku dhaqmayo bal ka waran. alam yaclam miyaanu ogeyn midka sidaa yeelaya bianna allaha alle yaraa inuu arkayo oo asaga inuu ka warqabo miyaanu ogeyn waayo waxa uu suubinaya inuu ka warqabo inuu ka amaalmarin doono inuu aakhiro la kulmi doono taa miyuusan ogeyn doqonka xunkaa sidaa suubinaya. kallaa ka joogaa linsaano waray waxa ha iska dhaaf waxa aad ku socoto waad meel xun baad ku socotaa ka joogaa layidhi. lain lam yantahi buu yidhi alle hadduusan ka reebtoonaanin insaankaas faajirka ahi kaafirka ahi hadduusan ficilkaa xun iska daynin wa amhaaluhu wa adraabuhu ilaa yowmi alqiyaama waxaasoo dhan halkaasay soo wada gelayaan. kuwa diinta ilaahay hortaagan, kuwa xaqa hortaagan, kuwa diinta ilaahay inay fido hortaagan, waxaasoo dhanaa soo wada gelaya. lain lam yantahi hadduunan ka reebtoonaanin lanasfacanna qabane oo qaabane waaye binnaasiyati fooda yani foodaanu ka jiidaynaa waay aakhiro waay aakhiro naartaa lagu jiidayaa. binnaasiyati fooda ayaan jiidaynaa buu yidhi alle. naasiyatin ayaan jiidaynaa food kaadibatin beenisay khaati'atin ee gefsan waay ayaanu jiidaynaa. yani ninkaas wax beeniyey oo xaqa beeniyo xaqa ka jeestay midka asagaa waxaanu qabanaynaa foodaanu qabanaynaa oo jiidaynaa naartaa la gelinayaa waay naartaa la gelinayaa. marka foodu waxa weeya la yidhaha muqadamu ra's madaxa hortiisa waaye saas oo kale maarta. khaati'atin gefsan waa naarti way gefsan tahayoo yani xaqiga gees marta iimaankii ka jeesatay. marka ninka dembigaa la imaanaya miyuusan ogeyn alla inuu arkayo oo ciqaabayo oo dembiga uu la yimid lagu ciqaabi doono waay. naasiyatin food waaye khaati'atin ee gefsana le kaadibati xaqa beeniday xaqiina waa beenisay waana gefsan tahay xaqiina waa diidan tahay waay. taas waan qabanaynaa. faliyadcuu ha u yeertaa layidhi insaanka noocaasihi ha u yeertaa layidhi naadiyahu naadigiisa ha u yeerto. naadigu waa derbiga iyo meeshaa dhisan oo la isugu yimaado laakiin ujeeddadu waxay tahay waa dadka isugu imaanay dadkaas asxaabtiisa ah oo maaragtay bal inay asaga wax u tari karaan asaguna ha u yeerto hadduu awoodiba karayo waxba tari maayaane. sanadcu anakuna waxaan u yeeraynaa azabaniyata malaa'igtii zabaniyada ahayd ayaanu malaa'igtii adakeed weye oo cadaabka loo maaragtay loo xil saaray si naarta ugu ridaan ayaanu u yeeraynaa. kallaa ka joogaa layidhi waxaa aad maaragtay fiimaa dacaaka ilayhi min tarki salaa waxa uu kugu yeeray oo maaragtay muxuu ahaayey salaada inaad ka tagto xaqa inaadan sheegin diinta ilaahay inaad fidido yaa ha yeelin waaye. laa tudichu ha adeecin warkiisa ha maqlin waaye warkiisa ha maqlin. wasjud sujuudaa lay nabigaa lale calayhi salaatu wasalaam wasjud sujuudaa la yidhi oo daa'imaa loo jeeda nabigu waa dukanayay. waqtarib dhowow yani sujuudaada iyo taacadaada markastaba ku dhow ku dadaal oo ilaahay u dhowow oo taacada ku dadaal. tusaale wuxuu yahay liummatihi nabiga sala allahu caleyh wasalam. marka waxa weeyaan qof kasta haba intaad nooshahay taacada ilaahay ku dadaal waaye
salaada ilaahay ku dadaal waaye, taqwada ilaahay ku dadaal waaye. in alle inta naftu kugu jirto sidii nebi maxamed loo faray ayaa annakana nala ka doonayaa inaan ilaahay diintiisa ugu dadaalno. cimriga intoo naftu nagu jirto saasaa la rabaa, daacadii lagu dadaalo. laa tudichu ha adeecinaa layiri gaalka ku faraya ilaahay inaadan caabudin, diinta ilaahay kaa hortaagan warkiisa ha yeelin. kadaalika ummadiisuna waa sidaas oo kaleo meel kastoo lagugu yimaado diinta ilaahay lagaa hor istaago, iska daa lagu leeyahay, wax kasta lagu adeegsanayo, ha yeelin. ku adkayso ilaahay diintiisa, ku adkayso xata nihaaya. walow ay gaarto waqtigu waa iska dhammaanaya, qof adduunkan ku noolaanaya ma leh, laakiin waxay tahay foolxumadu diin la-aan in adduunkan kala tagto. ilaahay kuwa xaqa ku sabra allah inaga dhigo, kuwa diinta ilaahay ku adkaysta allah inaga dhigo, kuwa thabaadka iyo iimaanka ilaahay ku arsuqo allah inaga dhigo, allah ina toosiyo. wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed.